oo sheekada ma joojina oo shaqada ma joojina masaajidka ma u cararna mise waxa dhana kulli masaajidka kulli ragcada dambe kulli aadaag aqankan ka gaari doona hadana aqanka markaad maqasho kulli ragcada koobaad ayaad haleeli doona ma ama ragcada dambe atahiyaadka soo sawirey marka jamaacadii ku dhaaf waa xaalkeena maanta waaqicna saway illa man rahim allah xagga jihaadka himadoodu sabay ahay dadka salafka ah هل يرى قصير كور ما كسر قاضن دونا نيل هذا عبد الله بن قيس أيه وحول الدولان ما كنت شري دجال أما جهاد ما كنت شري وقالوا كله شري مركا نين باي هرس سعودي بوري ومجاهدين تكمل أها فرس كيسي فرس كيا أيه استبد سعودي أسأل يهري أنا وأنت بس سعودي بوري تبى تروح عن مغرب وأسوي نفتي صلاح الله يولي نفي إمس جهاد أبا إمس الدولان بعد النافس وحدي الدولان كان كغير قاضن وحدي عيالك محاستي يماتي يدكو هلاينا سادات ما أنت دمت حاسك عرفتي أوتي وحدي ما أنت دولان قاضي وحدي حوله بدل بكوي على بالهرت حولها صار ما يسوع إمس جهاد بعد سأقول نافسي ولا إلهي ما كنت دارتي ما أنت إن أنا وحوي إلهي أن تصي رب يرون أن تصي وحوي إلهي نفتي لأنه بنجي أما إلهي نفتي له حقاته أما هسكجته أما ما أنت وين شهيد إلهي بقى دوران أما هديك كله وحوي إلهي وحوي فل مهية ده شهيد نبي يحوي فل مهية وحوي أنا ده شهادة أنا هلين أيام صار لعبة بقول هنكيس طب أنا وحوي نك شيء بعد دوس عدو حنا ولا إن ما أنت نك كان كهرين قاعد يبقى الدولان وصل قاعد يبور ونو أكيس دولانك مسلمين تبى اسكعها بسبب دولانك أدو مسلمين تي أمرك دم الحجة لا ير حج بتو وير تبين بود نكيبا أصير ركلو يرو كوبان أي صهر بود أو مسلمين الدفاعي أو قال سوت وقبت طيب أنا قال دي بهتنا ير شبي هتنا ونقول سور رجال عليين بود مرة بعض هتنا مسلمين تبى حجة يعذب بود أصير صهر بود مركز هتنا قال دي دفاعي بود والله ده قال لما وحول ماشي يسمونه كعرّي ده كانوا يعيان ولا كاسو معرّي كلجي بقى كوسا هادي بودي وقالدي اسكا عابين بودي صدح jeer markuu saayay markii saddexaad ayaan arkay wuri asagoo intii waxa weeye dhulka la dhigtay intaas oo seefood iyo warmood la isku geeyay wuri jirkiisa waxaan ka tiriyay 60 darbo oo isku jirta waran iyo seef iyo waxa weeye leeb waxyaabihii hubkii lagu dagaalamay oo dhan baa ku wada dhacay bal u fiirsanikaas ilaahay soo ugu run sheegay رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا dad marka waxay ahayn hankooda uu sareeyo adduunyadan ba agtooda wax qiimo ay ka lahayn inta markii aan tusaalayaasha soo qaadanay waxaan isweydiinaynaa asbaabaha keena himadu inay hoos u dhacdo qofka hankiisu inuu yaraado asbaabaha keena isla marka asbaabaha keena hankiisu inuu kor u kaco oo himadiisu ay sareyso haddaan ku horeen asbaabaha keena qofka hankiisu inay hoos u dhacaan oo hankiisu uu hooseeyo waxa kamid ah حب الدنيا وكراهية الموت الوهن وحنا النبي عليه الصلاة والسلام كنت المعامل وهن كانوا وحوي وضعف ضعف وحنا النبي عليه الصلاة والسلام كنت المعامل وكوقي حي قف كانوا الدنيا تشعلاضه كيريدن oo naco waa sida maanta qaar badan oo muslimiinta ama xaalka muslimiinta intooda badan uu yahay markii laga reebo inuu ilaahay uu hidaayo u siiyo waxa weey adduunyadii baa la jeclaaday waxa weey adduunyada laga daba dhacay ayadaas uma loo shaqeeyay ayadaan baa laga fikiraa ayadaan baa qofkii habeenii maalin xisaabinaya ayadaan buu waxa weey aqligiisa iyo maankiisa ayadaas wax loo bartaa cilmiga hadda wuxuu noqday cilmi adduunyo noqday u fiirsada maanta madaaristeena iyo macaahidena iskuulada iyo macaahida diiniga bal u fiirsada inta u kala haysa ama inta xalaqaadka masjidka u soo kala haysa wax ka baranaysa iyo inta iskuulada u kala haysa waxaad arkaysaa ummadii wax u dareeraysa iskuulo wax yaani u dareeraya cilmiga dalabkiisa masaajida ka dalbo ama macaahida ka dalbo cilmiga diiniga aad buu yaryahay boqolkiiba hal ama laba ma dhanno dadku waxa weey adduunyo cilmi loo baranaya adduunyo loo shaqeysanaya adduunyo ma laga fikirayaaba
كأنما ذلك اللي وحال الذين أمور الدنيا تاس هذا كمده وحال حب الدنيا رأس كل خطيئة الدنيا قفك وتشعل هذا دم بكستا أي ملح أتاعي قفك دوبر الدنيا تشعل وكذا بدعو دم بكستا كل عيا وحال أركيس الدنيا درت إنه حرام عنيو الدنيا درت إنه بين الشيء الدنيا درت إنه خيام سمينيو الدنيا درت إنه شعيل وقب إنه فاحشة كل عيا الزنا الدنيا درت إنه حوي ضدك أودل منيو خشك سمينيو حرام أو رب الدنيا درت إنه قفك تشعل وكذا بدعيا والعياذ بالله marka qofka haduu adduunyada jeclaado himadiisu aad bay u hooseen himadii aakhire iyo hankii aakhire ee sare ayaa meesha ka baxaya ilaa adduunyadu iyo aakhiradu waxay isku yihiin darratayn waa laba dumar oo isla qabo kale miduma meesha iman yaani ma heshiinayaan ama adduunyada meesha iman aakhirada meesha ka bixi ama aakhiradii ba meesha imano adduunyadii ba meesha ka bixi laakiin qofkii inuu adduunyada jeclaado oo kuma manaado aakhiradana uu jeclaado لا يمكن ذلك تاسي صورة قلب ما بقى مد ماشي كبح أسبابتا كينيسا إن همدو أي هوسيسو وحكمي له قفك إنه كي مادو فطور قفك إنه وحوي مركر وداعي سنتري لكن مركي دنبه أيو جابس كيمد أو وحوي ضاعي وكجابي وحوي عكس بكيمدي وهسي تاسي ويد على فطور كاسي قفك أنا لا يابكم على فطور كا هدي وسن كوكا لحتجين qofku waxa laga yaabaa inuu waxa weey marka hore amalku bilaabay dardar u leeyahay Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam xadiis tilmaamay in kulli amal shara wa kulli sharatin fatra faman kanat fatratu ila sunnati faqad hudiya wa man kanat fatratu ila ghayri dhalik faqad halak nabi alayhi wasallam yani amal kasta wuxuu leeyahay dardar iyo waxa weeye gaabis buu leeyahay qofkii nabi wuxuu alayhi wasallam gaabiskiisu ahaado sunnada oo san ka tagin macna intii waajibkii faraa'idii وحوي قفكاسي وو هانوني قفكي لكن كتغا هدي النبي عليه السلام iyo waajibaadka oo muharramaad ku dhaca waxaway qofkaasi uu halaagsamay futuurkaasi hadaba wuu jiraa oo waxaway dad badan ayuu futuurkaasi haystaa waxa kamid ah asbaabta keenaysa himadu inay hoos u dhacdo qofka inuu waqtigiisi uu dayaco oo uu ku dayaco booqasho iyo safar iyo soo jeed iyo waxa weeye sheeke iyo maqaaxiyo laga sheekeeyay iyo meelaha soo la meereystay iyo suuq lagu noqday waxaas qofka haduu waqtigiisa mar dayaco umrigiisa uu dayacay waxa weeye adduunyo aakhiraba qofkaas uu seegaya marka nabi alayhi salaam waa kan inoo tilmaamay xadiiska oo yiri ni'matani maghbun fiihima kathirun min an-nas laba nimco dad badani way ku kadsoon yihiin oo waa maxay labada nimco as-sihhatu wal faraag wa caafimaadka iyo firaaqada dad badan nicmadaas ayagoo haysta ayaysan ka faa'iideyn dadka badana nicmadaas ku kadsoon yihiin ma garanayaan nicmada xataa nimcadu wuxuu yaqaanaan xoolo yar oo helo iyo xogaa yar oo caafimaad ah inta haduu helo alxamdulillah buu kuleeyahay waa nimcaysanahay laakiin ma ogo nimcada u qaalisnaa ilaahay inuu siiyay caafimaad iyo firaaqo oo ku cibaadeysan karo ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhawaan karo waxyaabaha hanka hoos u dhiga waxa kamid ah al-ajz wal kasal qofkii inuu maaragtay waxa weeye uu ku dhaco wahsigii futuurku kala yar duwan yihiin wahsi halka waxa loo jeedaa kii nabi alayhi salaam uu ka magan galay uu yiri allahumma inna a'udhu bika من العجز والكسل إلهي وكم ينقلي شر النبي عليه السلام عجزي وهس عجزي ونحوي أول الآن كسل كان نحوي أودي واضح يسا لكن إرادي ما ذهين واحد ما دونيس أودي أضحى يا هذا دوني نيات سميس مركز تاس النبي عليه السلام وكم ينقلي وإلهي وحوي ديستي إنه إلهي كبد بادية نين اللي هذا خالد بن الصفوان وكم يدها علماء أيا waxa la yiri nin baa u yimid oo wuxuu yiri maxaa dhacay wuu adiga asxaabtaada ragan culimada ah isla joogtaan markii aan arko idinkoo xadiisii isu sheegayo xadiisii kala warinaya oo qisastii iyo ashcaartii iyo gabayadii adu cilmi isweydaarsanay hadaan arko markiiba lulma igu soo xaadirey suudi oo cilmiga aad sheegaysaan iyo khayrka aad ka hadlaysaan iyo yaani fadaaisha aad sheegaysaan ma badhageysan karo hurda igu dhacayso waan gam ayaa tolo maxay arintaas ii sabab yiri bal ii sheeg wuxuu yiri sababtu waxa weeyaan buri meel waan kaaga soo qabanay waxa tahay wuri dameer la gariyo suura bini aadam laanaka حمار في مسلاخ انسان بوري وحاطه يوري حقيقه waa dameer baa tahay maxay dameer kuma garanay cilmiga qiimihiisa iyo sharaftiisa sadarta hadii bal maanta dameer meeshan soo fadhiiso oo cilmi ku dul akhriso cilmi mu dhageysani
علم ما وقرنا يابا وحنا شيء سبب كمثل الحمار يحمل أسفارا مركب حتى سورة ما بني آدم كتها حقيقة معناها هوسة تمرها صلى بتاجر وحكم إذا أسبابته كان يسأل قفك همدي سؤال هوسة يسوع إن قفك غفلة يكون عضو قفلتنا وحيابها كانوا حكمنا جاهلية قفك هدو جاهلية هاي أو علم وصلناهين قفلت باكو إيمانيس وهي قفلة داسنا وحوي قفكي وحي أصابة يساع إن ومعركتي علمي خيراتي كفريستو maxay ma baa xusuusnaba in cilmi jiray iyo khayraad jiray iyo fadaa'il jirtay iyo tartan wax tartamina jiray ma ba garanay qofkan qaflad buu iskaga jiraaba habeenkiisii maalintiisa waxay ku dhamaanayaan wax maala yacni ah ay kaga dhamaanayaan sadarta sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu xuuri ar-rahatu lir-rijali ghafla raaxada iyo nasniyuhu oo ma fiicna ragga qaflad bay u keentaa buu raaxadaas oo ma fiicna ninka ragga marka inuu raaxaysto meelaha fadhiisto meelaha ka sheekeeyo meelaha hururdo oo ma fiicna ninka ragga inuu shaqeeyo ama cilmi barto ama amal qabto ayaa u fiican buu ragga raaxadu ay uga dartaan sidoo kale waxyaabaha ahimada qofka hankiisa hoos u dhiga waxa kamid ah at-taswif wa tamanni qofku inuu يعني دي بودي خيراتك وده مثلا علمي ان شاء الله بريمان علمي ضل بدونا اما بيش سو سوتان علمي بالله بدونا اما وحوي عباده iyo وحوي خيراتك دبا ان شاء الله تعالى marka weynaado وحوي هذا howlaha igu badanay markaas in شاء الله تعالى قيام ليلك iyo soonka iyo bal waxaan dhigo ajaa'ibta dhigo wal arki doona qofka sidaas u dhaha qof aan saadin ma jiro laakiin taasi waxa way waajidkii sheedaanku soo qofka saa u shakeeyay u leeyahay bari baad toobad keeni bari baad khayr sameyn bari baad cilmi dalbi bari baad kan sameyn ayaa qofkii umrigiisa u dhamaan wuxuu arkay bari baad asagoo waxa weeye gaboobay oo waxa weeye geeridii waxa weeye qarkeeda saaran marka qofku inuu dib u dhiga ma aha taswiifka waxa la dhahaa waa min jundi iblis يعني سوف من جند ابليس بالله قفك انه ديبو دغ هذه جير عملك خيرك waxa waxyaabaha ibliis ku adeegsado ee dadka uu ku hodo ee jarka ugu talaabsado ayay kamid tahay suuliga qofka uu toobad keen ilaahay baad u noqon doontaa waad hagaagi doontaa waad hagaajin doontaa waxa waad ka bixi doontaa xumaanta iyo macaasida ku jirto waad ka bixi doontaa waad hagaagi doontaa iyo qofku arkay asagoo kasi dareeba iska dhaaf inuu hagaagay ka bas si dareeba maalin ka dambe si fogaan ilaahay ka si fogaanaya sadarteed waxba dib ha u dhigine khayrka maanta ba go'aanso علمك ما أنت نبرت قانص عبادة إن ما أنت وعاوز لتلك بالوضع قانص صانك سنة إن بالوضع قانص استغفارتي أذكرتنا دائمتو لازمتو قانص جماعات كنا هذه كده بلال إن شاء الله تعالى جماعة وسكرنا في قانص عوضا بقانص عاونك قبل وهوش وحبد دي بهودي شيطان كتشانس السيني شيطان كمان هذا تشانس السوق كافة إيديسن دي بقى بيتر تشانس كوسو علم هاي sidoo kale waxyaabaha dadka himidooda hoos u dhigto waxa kamid ah qofki inuu ku daydo dadka himidooda iyo hankooda uu hooseeyo inuu arko dadka si liitaba haduu asoo jamaacadka mar soo xaadiro oo arko dad gidaarada iska fadhiya xilliga jamaacadka la tukanayo oo war aanu ku wasaaban dhaamaaya qaar baa jamaacadkiiba qaar baan salaadba aqoon ismarina saasan ku fiican mar baan culimada yar fadhiyo العلم طلب أنا أقوله مثلا أنا من مرة محاضرات علماء كاير أقدون حديث 40 كمان بين يرد يستوى بل علماء من مرة كاير أقدون هذاي قار علماء أنا قوين بتشرو دبتشرينه مالها فديا وهذا كاه كل ضيق كاسوا كل انتهى كام حد كجد يعني تذكر كاسر هي كاهن سر هي كده سو النبي عليه السلام مصدقين إن الدنيا دينا وحوي لا تنظروا إلى من هو أسفل منكم لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم النبي عليه السلام وحوري حاجة الدنيا ده ضدك إذا كهو سيئة ضدك إذا كسر ريها إيجنا لكن تسمع نده حوي وحي آخرك الصعب سنة علمي الدعوة دي خيرك ضدك كاسر ريال الإكتاء ولا قد إذا ضدك كهو سيئة لما إيجو الدنيا ده ضدك كهو سيئة الإيجا markii مثلا artado cayro waxba haysan oo jeeb kayr maniga busaaraysan alxamdulillah dad baa maanta dabka aan shidaninba dad baa waxa weeye mara ay xidhaan la dad baa qootliyoomkada haysan qootliyoomkii baan haystaa alxamdulillah dhahdo dadka ka hooseeyad eegto ay xagga adduunyada ku fiican laakiin xagga aakhirada maya xagga aakhirada dad ka sareeya la eega dad ka cilmi badan dad ka amal fiican dad ka cibaado badan dad ka sal higsada hadiya jeer وحال الله dadka asxaabta xunxun lama socdo sababtu ah asaaxibu saaxibku hadii jeer ku soo jiidi haduu wanaagsan wanaag ku soo jiidi haduu xun yahayna xumaanta ku soo jiidi marka dadka xunxun waliga hala fadhiisan waxa weeye oo yaraan
waxa weeye xumaantoodii ay ku qaadsiinayaan dabcigoona uu xadaabanay يعني قف حنا ضل فريس دبعيغاو وكسو حد اخلاقديسي dhaqankiisi siiradiisi waxa halka asoo talaab shay fa shay aan dhaqankiisi ku soo galay waxa weeye sidiisoo kala noqday sadarteed dadka wanaagsan la soco dadka xun iska ilaali hala soconin waxyaabo dadka hankooda hoos u dhiga waxa kamid ah dhalinyarteen waliba maanta aad u mashquuliyay waxaan waxa la yiraahdaa lagu tilmaamo jacaylka ama cishqiga dhalinyartii maanta waxa mashquuli marka u fiirsan mobiladan iyo waxaan ay ku mashquulsan Facebook iyo waxaan social media balaayadan gaada nooga timid ee gaada nagu mashquuliyeen in qaar badan waxa weeye chatting-ka habeenii maalin ku jiraan habeenkii kooda habeenimo labada habeen waxa arkaysa asoo ku jira sheeko iyo waxaas oo waxa weeye gabadh laga yaabo meel kale inay joogto caalamka joogto la sheekaysanaya ama la haasaawaya marka qof noocaas meel u mal inuu cibaadaysan qof noocaas meel u mal cilmi inuu dalbi waqtigiisii wuxuu ku mashquulsan yahay jacayl iyo sheeke iyo waxa weeye adigan ku dhimanaya iyo kanaan ahayo balaayadaas qalbigiisa mashquulsan marka qof noocaas waa qof xanuunsan oo u baahan in waxa weeye la daweeyo daawadaas ku dhac cudurka ku dhacay in ilaahay subhanahu wa ta'ala ka bariyo inuu ka daweeyo sidoo kale dadka waxyaabaha hankooda hoos u dhiga waxa kamid ah maciishadan lagu mashquulay khaasatan awlaadii iyo reerihii biilkoodii iyo quutilyoomkoodii ayuu ninka sileeyay waan soo dhicinayaa marka taasi de wax qofkii lagu canaan ma baahe oo de waa xaq saaran iyo waajib laga rabo inuu waxa weeye awlaadiisi reerkiisa u shaqeeyo oo nabi wuxuu alayhi salatu wasalaam kafa bil mar'i ithman yudayi'a man yaqut qofka waxa dambi u filan inuu dayaco cidii uu biilay ayuu nabi alayhi salaam yiri taas la yaab kuma lehe laakiin in laga badbadiyo oo cilmigii iyo cibaadadii baad uga mashquulsho awlaada kasabkooda iyo reer kasabkiisi taasa arin aan lagu cudur daarin marnaba marnaba lagu cudur daari maayo ina dhahdo waxa weeye cibaadadii baan ka mashquul oo jamaacadkii baan kaga mashquul oo cilmiga baan kaga mashquul oo khayrkii baan kaga mashquul kasabkii adduunyada habeen maalin kasabkaas ku mashquulsan sida dadku maanta u badan yihiin ba weeyaan waxa taas cudur daar ku heli maysid ilaahay wuxuu ya ayyuhalladina aamanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum ya ayyuhalladina aamanu la tulkum amwalukum wa awladukum an dhikrillah yeena xoolihiina iyo awlaadiina dhikriga ilaahay ka mashquulin bilaahi waxyaabaha dadka hankooda hoos u dhiga waa qodobka u dambeeya ku soo gabagabeynayna waxyaabaha ku saabsan يعني arrinkan waxa weeye manahijtan gaaladu inoo dajisay ee hadda iskuulada lagu dhigo xaqiiqadeedu waxa weeye manahij caruurtii laga jeedinay cilmigi iyo cibaadadii iyo khayrkii lagu ababin lahaa meeshii quraankii laga bari lahaa oo culumta shariicada laga bari lahaa oo ilmihii saas lagu soo ababin lahaa lagu soo tarbiyin lahaa ayaa iskuul lagu xareyn واسقول اسكول به واسقول وحوي وشرقول عادي لبيه 10 سنه meesha ku xareysnaan wax cilmi oo ka soo xareyn ma jirto inuu cilmi wada kala tahay labiyada 10 sano markuu meesha ku xareysnaado iskuulka uu barto markuu ka soo qalin jabiyo asoo shahaado wata dad su'aal yar weydiiso mid ma garanay uu maray waa qolof taarufteena maanta hadalka aan sheegayo bal ka daba tago bal arinta tijaabiya hatta culumtii maadiga dhigtay bal wax ka weydiiya sayniska dhigtay hatta wax ka weydiiya ma ka garanay ma jirto لا الدين نمينا برانين ولا علومتي وحوي مادي أنا وحبا مينا كبران وقلف مرن لكن هذه عرفت أصبر في رصد ما أنت هذه مناهج تاني إسلام كي صح ده هذا كتر بين لهن أو يران توضب القرآن كتير لقيمسي هذا قرآن كتفسير كتير لبروه هذا اللغة العربية لبروه هذا وحوي فقه لبروه هذا أحاديث لبروه وبد نوعها النص بيحلها إنه ما أنت سنة هان لهن waxaas oo wada malaayiinta haday diinta la baro heerkeen maanta joogi lahayn maanta duligan haysta iyo waxa weeye dibdhacan iyo waxa weeye diintii oo laga tagay ayaa maanta yaan ku sugnaan lahayn mise sharaf iyo cizi baan gaal lahayn iyo baraare shaki ma laha inay arrinka dambe ay waxa weeye jawaabtu tahay aan soo gudubna hadaba kulli waqtigu aska gabaabsi xilligii aan ugu talagalay muxaadarada ku dhameeyo saacad ahayd 10 mirir baan haystaa marka insha Allah taala waxaan isku dayay bal inaan 10 kaamir ku soo koobo asbaabtii waxa weeye qofka uu ku gaaray hanka sare ulul himma asbaabtii lagu gaaray arka koobaad waxa weeye al-ilm wal basira ilmiga iyo basirada qofka inuu wax barto ilmigu sidiisaba qofka hankiisa kor buu qaada qofka markuu ilmiga barto khaasatan ilmiga diiniga ka hadlayna waxaan ka hadlaynaa waa ilmiga diiniga ilmiga maadiga ma aha علمي الدين قفك بركو برتو هنكيس وسرين محايا لي ما أنت ولا نحول لنا وليه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة
waxa uu ku nool jawi uu ku nool yahay jawi culimada iyo cilmigaas hankiisii himadiisii kor u qaaday wuxuu akhrin siirada nabi kaleey salaam sunnada nabi kaleey salaam salafkii saybay ahaayeen xayatooda saybay ahaayeen hankiisii hadaba hadii jeer uu sareeyaa waa qofka cilmiga barta aakharu garanaya waxay tahay adduunyada waxay tahay uu garanaya oo ma hodaysa adduunyada laakiin qofka jaahilka ah adduunyadana ku weyn shilinka yar ku helaya wax kasta uga weyn hadii maanta la dhaho bal fiirsada salaad ay soo qaadi hadii la dhigi lahaa salaada subax qofka masaajidka ku tukada waxa la siinayaa $10 wax badan ma aha yani hadina $100 iyo $100 waxa hadin qof kasta oo masaajidkan salaada subax jamaacad ku tukada masaajidka imaamkiisa awey من هذا شو يا شعب الرحمن شعب الرحمن ومساعد كان واحد انتهى لك كنت كذا صلاة الصبح صفقة مبلغ سماه إلى ميلها هذا فدينا إلى سدح صف إقامته هالصف شيخ أنا بروح كنت كذا الله كبرك يا شيخ الله كشرفه سدح صف وايه كم السوقات مركوب بدين وسدح صف يعني مساعد كي سدح ميلاد ميل باب بحسنتي هذه وباطا ما كير بس 3 ميلاد مال كير ربع باب بحسن ها لبي النص ويعني مساعدكي markii 10 meel loo dhigo laba baa lagu tukaday intii kale uu maray xaafadan waxa ku teedan waan ognahay jumcada soo buuxsado meel kala fadhiisto dadkii jumcada ku tukanay awey salaad subax qofna hada shaqo ku maqan oo hada qof shaqo ku maqan ma jiro iskuul lagu maqan waxbarasho lagu maqan meel lagu maqay ma jirto guriyaha la wada joogaas xilligaas qof badana ku maqan ma jiro away dadka meey marka waxa weeye Soomaha waxa looga mashquulay soo adduunyo ma aha soo hurdo ma aha soo yaani waxa weeye bila cudur dadka cudur daar kuma leh hadii la dhihi lahaa xilligaas masaajidka qofkii soo xaadira qof kasto masaajid ku tukada salaad subax $10 baa la siinayaa in taajira meeshii mid wuxuu yiri waxaan ballan qaadaya waa in la yaqaan macruuf oo ilaahay lacagtu dhiibay nin kasto masaajid ku tukada salaada subax $10 oo cash yaan saadkiisa ugu shubay maxay la tahay masaajidkan say wahaan la xalkiisa walidinkii jawaab aanu jawaab mahaye ya sida jimcaha si ka daran waxaan filayaa xataa ibnu xuseen iska dhaafay jidadka ay lagu tukan lahaa oo meel la kala istaago la waayi lahaa war meelahay runta dad ku sheegno khudubkaada la soo saas ma hadaba ila daanta dad ba xataa tax soo qaadan lahaa وحقيقة واساسة وحقيقة ترتويا هذا مشكلة ما أها هردة دتك لا تكتئ ودتك ما أنت ودم بتعبان أحيانا ويشقين يونا وحوي هردة دي ولا تكتئ ومساكين دتك إسكده شيخ وحبا عربك وقت كين وكن جماعات مساعد ما أساس ما أرنك وحوي دتك أصلا بهيمت بقوم هيام بجماعات كان شيء إني صلاة قلبي وذكر موي نبأ أصلا هردة سأو معان يو وحوي وحاس سأو معان الدنيا هذه الله شيئنا هردة كسر كعيان وحلا يبقى أفرت من مساعدك وأفرت بحسين هذا كور marka ilaahay qalbigeena haday ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigeena ha jeclaysiyo daacada iyo cilmiga qisayr baa idin sheegaya ninba waxa la yiri gabadh buu doonay guurka doonay tabeetana gabadh qurux badan bay ahayd oo reer fiican oo sharaf leh ka dhalatay mansab iyo jamaal bay lahayd gabdhaha noocaas hadii jeer way isqaaleeyaan والغواني يغرهن الثناء بالك شاعرك قبلها قبلها قروح سنة هذا الشعر أمانت إياه وحوي كذسو ويسلوي ويقبوي نبى مركز صوتاني مركز إنك ديدي وحيد تري لا بس سيابات بنكو ديدي هو تاني عيرات هيتر وحوي ما هيست ما حد يقول غنبرت قبل إن اشترفت عليه قروح عليه ما نيك عن عيدا ينقول سدا ميدا كله واحد شرف أولي له يسمعات أولي له متكتير نيك أما سمعات بالغرها ama xoolo lagu raaca labadii midna ma haysid maxaan ku raacaa qorada dhaaf tabataan ninkii uu fikiray wuxuu yiri wallahi gabadhan maanta labada arrimood igu diiday talo midka ii dhow maanta aan midka u fiican talo aan ku mid baan horta ku hagaagay oo shaqaysanay waa midka talo markaas uu ilaahay xasabka iyo sharafka kaasaan meel saari ninkii cilmigu dalbay cilmigii buu ku noqday caalim xiriir ah tabaatana ninkii ummadii baa ka daba dhacday wala isgaarsiin waayay sheekh hebel buu noqday sheekhii muftiga ahaa dabeetana gabadhii markii aragtay subcadiisii maqaamkiisii ayay tiri war heede hadda ma guursan dabeetana ninka wuxuu yiri ma raali ah waqtiga koobaha mashquul cilmiga ay mashquuliyo jaaris ba koobaha raali ah yiri
فانا هاد وقت كو هايو خليغي ان كو دوناي وقت كو هاي سؤالي ديده ما orada dhafet yiri asna yani maalin baa anay diiday maanta anna abaalkaaga wasaas yiri marka bal u fiirsa cilmiga qofka yani martabada iyo maqaamku gaarsiinayo sidoo kale asbaabaha keenay qofkii himadiisa inay sareyso waxa kamid ah qofkii inuu yani hamigiisa hal hami uu ka dhigo hal hami ka dhig hamigaaga ha badinin hal hami uu yeelo oo waa ma hamigaasi iraadatu aakhira un doon bas adduunyaha doon oo sheekhow sogtan aan adduunyadii joogna ee waxa weeye adduunyadii aan u baahanay arsaaqdi war arsaaqda way iimanay ilaahay baa ku qoray waxba adigu ha u qasdin waxba ha doonin hamigaaga waan aakhiro ka dhig taa ma yeeli kartaa anna waxaan ku ballan qaaday hada hamigaaga aakhira ka dhigto inaad adduunyadana ayadu duleysay ku timaado oo waxa weeye adduunyada aad hesho adduunyada ku daba orodaba الحديث النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه النبي عليه الصلاه والسلام من كانت همه الاخره جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم ياتي من الدنيا الا ما كتب له وحديث صحيح النبي عليه الصلاه والسلام قفكي همديسه اي تahay aakhiro oo aakhiro un doonaya oo ilaahay uu arkay inuu si dhab aakhiro u doonayo qalbigiisa aakhiro ku weyntahay ilaahay subhanahu wa ta'ala hodantinimadiisa qalbigiisa dajiya adduunyada ayadu dulaysan bay u timaada waxa weeye hamigiisa ilaahay uu ururiya qofkii laakiin hamigiisu adduunyo noqda ilaahay hamigiisa uu firdhiya oo kala geeya isla markaa faqrigiisa waxa loo saaray labada indhood dhexdooda Soomaaliya dadkan ganacsada inay adduunyada ka darginba maanta xusnii bal ganacsi samee intaas gaariga uu yeelan bal laba fooq dhis uu dhisi bal waxa sameeyay ma baqan ayaba maxay la faqri halka u saaran faqrahu jacala faqrahu bayna aynayhi faqriisa halka laba indhood dhexdooda saaran adduunyadana ninkaas heli mahay wixii loo qoray mooyaan si kasta adduunyada ugu tacab oo waxa dad aanu aakhira mar rabo cilmina mar rabo adduunyada oo sheekhoygu ogow bal wakaase waxaad ka heshaa adduunyada waxa lagu qoray wax kale hel imisa adduunyada habeeniga maalin soo jeeday oo intii loo qoray inta kale aan wax kale aan helin lagama yaabane koob inaad ku darsato adduunyada aan lagu qorin haddaad si kasta ugu mashquulsho habeeniga maalin aad ka shaqeyso ha ka yaabin taas لكن آخرها هذا قابل شو الدنيا أيضا كويما أيضا دليسن أنت اللي وقرأ وكويما وحكم إذا أسبابته علو الهمة كينيسة ذكر موت خوف كنوا بدي جيرده إنه آخر حسناه والدنيا دي يسمى كهودين آخر حسناه جيرده حسناه الدنيا تكتجي حسناه سادرت الهمة ده ويسرين سنفت هذا لا حسابته وحكم إذا أسبابته qofkii inuu ducada ku dadaalo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu bariyo inuu himadiisa uu wanaajiyo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaalmeeyo dhikrigiisa iyo shukrigiisa iyo cibaadadiisa wanaagsan soo nabi alayhi salaam ku ducaysan jiray Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik haduu Ilaahay ku caawinin oo adna dadaalayso waxa laga yaabaa dadaalka inuu dib ku keenaba marka Ilaahay kaalmihiisa wadiiso idha lam yakun aawnu min Allah al-fata fa awwal ma yajni alayhi ijtihaduhu sidoo kale hadii aad ku dhex jirto bii'ah xun iskaga dhaxbax bii'adaas hadii aad ku dhex jirto dad maaragtay himadooda hooseyso oo adduunyo ka sheekeynaya waa sida dadka maanta ku badan yihiin be qof aakhira kaaga sheekeen arkimeys qof aakhir ku xusin arkimeys bal walaalada u fiirso ilma adeerada u fiirso asxaabtada u fiirso qof kasta adduunyo ku sheegaya qof aakhir ku xusin maaragtay arkimeys wadaad meelaha soo fadhiiso marka qaarkood wacdi ka dhageysta mooyaan marka dadka aad ku dhex jirto haday yihiin dad adduunyo jecel oo waxa weey aakhira ka fog oo reer cibaad aan ahayn inaad iskaga dhex baxdo hadaa asxaab noocaas leh iskaga dhex bax oo dad wanaagsan oo khiyaar raadso dadkaas ay maartay ku dardargeliyaan oo ku cibaado u kaashato oo waxa weey ugu dayato oo himadaada kor u qaadaan laakiin haddii bii'ah ku dhex jirto iyo dad liita iyo dad kaasi xunba asxaab xun aad leedahay inay ku soo jiidaan xaq xun ku soo jiidaan mooyaane ha ka sugin inaad hore u socoto sidoo kale himada sare waxyaabo lagu gaaro waxa kamid ah dadkii salafka ahaa siiradooda aan akhrino asxaabtii iyo taabiciintii aymadii bal siiradooda akhri naftaada wal xaqiir markaas meesha joogtaad garanaysaa iyo meesha joogeen in dadkaasi dad tagay inay ahaayeen hada wax yar ba ka tilmaanay tusaalayaal oo kooban ba ka soo qaadanay hada akhris kitaabka sifatu safwa ibn al-jawzi ama hilyatu al-awliya li abi na'im al-isfahani ama kutubta noocaas oo kale laga qoray ama sir alaam an-nubala lidhahabi kutubta noocaas dad akhriso waxaad garanaysaa maanta maqaamka aad joogto iyo waxa weey dadkaasi heerka ay gaareen in waxa weey bayna samaa'i wal ardi noo dhaxayso xagga cibaadada iyo xagga taqwada iyo xagga ikhlaaska iyo xagga akhlaaqda iyo dhan kastaba
sidoo kale waxa weeye waxyaabaha himada kor u qaado waxa kamid ah qofkii inuu had iyo jeer fursad u ka faa'iideysto oo mubaadaro uu sameeyo oo tartan u galo tartan inuu bilaabo oo naftiisa uu dabdiyo waqtigiisa uu soo koobo isla markaa uu sameeyo jadwal uu ku amal falay mesela xaga cilmiga inuu jadwal u sameeyo cibaadada inuu jadwal u sameeyo soonka maalmaha